barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay doorashada Mareykanka oo bishii lasoo dhaafay ka dhacday saddexdeedii ka dhacday Mareykanka. Sidaad la socotaan, Mareykanka doorashadiisu aad ayaa looga xiiseeyaa adduunka intiisa kale. Mar waxa weeyaan Mareykanka waa maaragtay waddan aad u xoog badan, saameyn ku leh adduunka intiisa kale, saameyn ku leh. Midda labaadna waxa weeyaan in ninka hadda madaxda ah oo waddanka haysta uu maaragtay xoogaa uu ka duwan yahay dadkii madaxweynayaashii hore oo soo maray, oo uu waxyaabo badan uu ka bedelay sharciga Mareykanka wax ka bedelay, isku dayay in maaragtay uu sameeyo kacdoon ka soo horjeeda waxaan la yiraahdo immigrantska iyo immigrationka in dib loo habeeyo, iyagoo ka duulaya in waddankoodii uu maaragtay sii baaba'ayo markii loo ogolaado dad fara badan oo waddankan u dhalan la keeno, qaxooti la keeno, intaasoo fiisooyinkii loo fududeeyo dadka. Isagu marka waxyaabihii ugu horreeyey uu maaragtay ballan qaaday waxay ahayd inuu immigrationka inuu ka shaqeeyo, uu sharcigiisa bedelo. Wuxuu olole u galay, saad la socotaan, inuu derbi dhiso, haba ugu badnaadaan dadka aadka u hadalhayay Mexico oo ah xuduud la leh, oo lagu maaragtay la yiraahdo dadkii Mexico dadkooda inay soo galaan waddanka Mareykanka, inay soo galaan iyagoo maaragtay xuduudda kasoo gudbaya iyagoo sharci la'aan ah, haddana ay maaragtay kheyraadkii sida iyagu aaminsan yihiin kheyraadkoodii iyo maaragtay waddankoodii iyagoo sharciba aan lahayn in ay isticmaalaan. Marka saasaa keentay horta in aad iyo aad loo hadalhayo doorashadan. Maxaa dhacay? Doorashada waxay dhacday bishii lasoo dhaafay, sa la socotaan, saddexdeedii bay dhacday, November saddexdeedii ayay doorashada dhacday. Doorashada markii ay dhacday hadda oo bilii xoogaa laga joogo, maxaa dhacay? Xaggee xaal maraya? maalintaas bishii saddexda ah, November saddexdeeda, oo la isugu imaanayay in dadka ay maaragtay boodaan, waa qayb ka mid ah processka doorashada process ayay leedahay, saad la socotaan. Waxaana processkeedu uu ka bilaabanayaa in maaragtay la isregister gareeyo qofkii muwaadin ah waddanka u dhashay, oo inuu boodo xaq u leh inuu maaragtay isregister gareeyo, oo markaas maalinta la boodayana uu qofkii markaa isaga uu rabo labada qof oo tartamaya uu ugu shubo. waxaa dhacda marka marmar ama inta badan dhacda in cabasho ay ka timaado qofkii laga badiyey inuu xoogaa eedeymo soo jeeday oo yidhahdo doorashadii waa lagu shubtay, waa la xaday, waa khayaana meesha ka dhacday, waxaan xalaal ma ah. laakiin inta badan ma sii fogaato oo processkii doorashada loogu talagalay oo adigu labadan bilood ah wax badan uma dhinto. waxaa la yirahdo concession, oo qofkii inuu qofka kale u maaragtay u hambaliyo u yiraahdo okay, waad maaragtay gamekii waa dhamaaday, waad iga raysay. So calaamadii ugu horreysay oo doorashada inay aad iyo aad u dhib badneyd waxaa lagu gartay in markii ugu horreysayba habeenkii doorashada dhacday, isla habeenkii ilaa 10 state camal oo 6 ama 8 state ay weli ay xisaabintii codadka ay socdeen. kadib waxaa dhacday in sidii maaragtay lagu yaqaano in isteedayaasha qaarna lagu celiyo, maadaama dadkii inta u dhexaysay farqiga u dhexeeyay aad u yaraa, in lagu celiyo. sidaa daraaddeed maxaa dhacay? Donald Trump markaa wuxuu ku andacooday in doorashadii la xaday. waxa ugu weyn oo indicationka ugu weyn, waxa isaga ugu weyn uu markaa eegayna waxay ahayd in doorashadii habeenkii 12 midnight wixii ka dambeeyey uu isagu sarreeyey isteedayaasha sida qaar Pennsylvania iyo Georgia iyo Arizona iyo Wisconsin adigu iyo Michigan, intaba inuu isagu ku sarreeyey. sida la sheegay, sababta arrintaa keentayna inay noqotay in dadkii maalintaa codeynaya iyagu markaa yimi u codeeyey iyo dadkii ku codeeyey waxaa la yirahdaa absentee ama maaragta paper ballot, oo la yiraahdo dadka waraaqaha soo diray. saad la socotaan, sanadkan sanad wuxuu iska ahaa iska dhib badan, waxaa jiray COVID-19 cudurkan coronaha. sidaa daraaddeed isteedayaasha qaar ayaa sharcigii wax ka bedelay, waxay yidhaahdeen dadku inta ay iman lahaayeen meel lagu badan yahay
ay cudurka hadhow kala qaadi lahaayeen waxaa loo ogolaaday markaa inay ku voodaan ay kusoo diraan warqad kusoo diraan